dagaalkii uu ku dhiman lahaa macalin Mahdi taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ka qarxaya maalmaha soo aadan haddii sida ay wax ku socdaan aan wax laga bedelin. sidaas maxaan u leeyahay waxaan idin wadaa cadeyn buuxda war saxaafadeed ku saabsan ka hortagga dhulboobka guryaha deegaanka u ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo saraakiil ah ayaa soo baxay. saraakiisha ciidanka Soomaaliya ee degan halka loo yaqaano dhul kala duwan oo ku dhow dekada magaalada Muqdisho isla markaasna kala ah dhulkii deegaanka guryaha booliiska ee Fardooleeyda sidaas oo kale Sirindi, Sheelare, Buulo Gaaljecel iyo Buulo Wekiyo ayaa markan waxaa la soo siiyay Maxamed Xasan Qoone oo xildhibaan hore ahaa isla markaasna ka tirsan xildhibaanadii laga soo dooranayay Beledweyne ama Hirshabeelle. xildhibaanka hore oo la soo siiyay dhulkaasi ayaa saraakiisha degan halkaas waxa ay sheegeen in ay dagaalami doonaan haddii aan wax laga bedelin sida wax loo wadana dhiig uu daadan doono. haddii aad horay u ogeyd shacab cabanaya hooyo mooto lagu cagaf lagu jiidayo iyo dad baraha bulshada muuqaaladooda lagu baahiyay iyagoo sheegaya in dawladdu dhulkii ay deganaayeen ay ka barakicisay, hadda waxaa loo soo dhigtay saraakiishii Soomaaliya oo qudhoodu sheegaya in intii guryo la'aan ku dhici lahayd ay dagaalami doonaan. war saxaafadeedka ka soo baxay saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya waxaa lagu yiri annagoo ah saraakiisha kormeerayaasha saraakiil xigeenada dableyda ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degan guryaha booliiska ee Fardooleeyda, Sirindi, Sheelare, Buulo Gaaljecel iyo Buulo Wekiyo waxaan si wadajir ah u cadeynaynaa in guryahaasi yihiin xarumo deegaan oo si buuxda sharci ahna waa sharcina uga diiwaan gashan ciidanka booliiska Soomaaliyeed looguna asteeyay hoyga xubnaha ciidanka ee shaqada ku jira caruurtooda, agoontooda iyo qoysaskooda. guryahani waa hanti gaar u ah ciidanka Soomaaliya kuna hoos jirta awoodda, mas'uuliyadda iyo sidaas oo kale maamulka sharciga ah ee saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyadoo lagu saleynayo dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xeerkan iyo sharciga ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo habraacyada guryaha xaasileyda ah ee booliiska ayaa lagu yiri. guryahan aanu ku noolnahay waa saraakiishu war saxaafadeedka ay soo saareen waxa ay horay uga mid ahaayeen waxa horay u deganaa boqolaal saraakiil ah oo saraakiil ku xigeenno dabley iyo qiyaastii 10,000 oo qof oo isugu jira xaasas iyo caruur isla markaasna ka mid ah dadka ehelka u ah ciidanka Soomaaliya. guud ahaan war saxaafadeedkan marka la soo koobo waxa uu cadeynayaa in waxa ay war saxaafadeedkooda ku yiraahdeen waxaan si cad u cadeynaynaa in xarumahaasi aysan ahayn dhul rayad, dhul degmo ama hanti shakhsiyadeed laga dhigi karo isla markaasna la iibin karo midna ma ahan ayay war saxaafadeedkooda ku yiraahdeen. waxaana warqadda ka soo baxday oo aan halkan idiin soo dhigayo ay tilmaamaysaa in ciidanka ama saraakiishu ay guud ahaan diidan yihiin sida ay yiraahdeen haba yaraato inaysan aqbali doonin in dhulkooda laga qaato. ugu dambeyntii waxa ay tilmaameen in ay difaacan doonaan dhulkooda hadda oo caawa ah oo aan muuqaalkan idinla wadaagayana waxaa la soo warinayaa saraakiil ah taqaano oo ciidanka Soomaaliya ka tirsan ahna kuwa saameyn leh inay hub ka qaateen iyagoo sheegay inay dagaalami doonaan haddii aan wax laga bedelin dhulkaas la sheegay in xildhibaano la soo siiyay. waa Cali Aadan Muumin oo kaaga waramaya dhulboobkii Muqdisho ka socday oo inta xarkaha goostay saraakiishii markan ay qarka u saaran yihiin inay qudhooda isxabadeeyaan. haddaba maxaan u yiri Macalin Mahdi ayaa ku dhiman doona dagaalkaas. Macalin Mahdi waa fuliyaha dhul kasta oo magaalada Muqdisho laga burburiyo waxaana dagaalkaasi uu noqon doonaa mid u dhaxeeya taliyaha qaybta guud ee booliiska Soomaaliya Macalin Mahdi iyo sidaas oo kale saraakiisha dagaalami doonta ee sheegay in dhulkooda difaacan doonaan.